gaarida guud ahaan waxay ku bilaabeen 25 cars 25 gaari ayaan ku bilownay waxaan soo shaqaynaynay ilaa hadda 3 bilood hadda waxaan maraynaa ilaa 100 iyo tiro ka badan 100 iyo xoogaa baabuur baa maraynaa hadda Muqdisho Taxi Company maraysa rate-ka aan dadka ka qaadno wallahi farqi difference weyn baa u dhaxeeya sidii awal tagaa sida u shaqayn jirtay iyo sida hadda Muqdisho Taxi Company ay u shaqayso awal horeeto kale marka qofka laga qaadayo suuqa weyn ee Bakaro inta la yaqaano oo la geynayo airport la geynayo kale $30 baa dadka laga qaadi jiray taga sida cadcadayd laakiin now waxaan qaadnaa anaga $6 $7 aniga taksiilan soo qaar bas waa qaar waxa waaye macnaha wadamadaas ay ka yimaadeen taksigan macnaha taksi dibadda iyo waxa ay guud jireen waa soo bixaan wadankooda oo inay imaadaan ay ku shaqeystaan ay u yimaadeen macnaha hadana taksiilaha ka taksiila kala hadda ku dasheen hadana alxamdulillah qof walba waa iska dhaqan yahay maadaama hadda shirkadan oo Muqdisho Taxi oo dad badan oo baad muddo ay shaqo u yeeshay wadankan wax kale ba ku soo kordhay waxyaalo kale marka kulay maadaama waxaan jeclaa dhalinyarta dabaal muddada hayso dhalinyarta dabaal muddo nimanka inay ismu qof walba dabaal muddo aan leen macna dhib waxa inoo soo beemo jirto competition ka business ka u baahan iyo tartanka challenges ka maadaama business uu baahan yahay waxyaabo kala duwan iyo idea waa soo dhaweynayna waa walaalaheen waxa fikirkeena lagu raaceen waxay taageereen fikirkii Muqdisho Taxi Company ay keentay marka wax saameyn gaar hadda anaga nagu ma yeelan haddana wadanka sidii hore ma laha maadaama nigeeda dad si fiicnaan shirkado kale ay imaanay marka waxaan jeclaan lahaa ummadda Soomaaliyeed oo bixisa taariikh waxa ay isku leeyihiin macna wadankooda inay iimaanka ay ku wadankooda ay joogaan wadankooda shaqeeyaan horta sideeda macnaha Soomaaliya u jeedid mustaqbal ahaan dil la horta mustaqbal sideeda waa iska fiican inkastoo macnaha 15 jirka 16 jir la isku guursan inkastoo macnaha haas ay taan haddana mustaqbalka waxa waa iska fiican mustaqbal iska fiican